قدر والله تكوري والله تشضي دولة خليج كأي كبد هانشرتي حبين كهانشرتي وركوده أيها كجوس علاقاتك سومالي لان مركز إماد waxay taageertay mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo kuwa kaleba ay ka qaateen in la go'doomiyo Qatar Somaliland principally mabdiyan waxaan aaminsanahay inay sax ku tahay go'aankii dawladda Jamhuuriyadda qaadatay inay taageerto dawladaha badan laakiin xaaladaha caynkaas oo kala ah markay saa wax u dhacaan kaamam loo kala yani fariiqiyo la kala noqdo arrimo adag la isku hayo wadannadu waxay ka eegaan oo boqolkiiba 90 siiyaan ahmiyadda danta ugu jirta xaaladda markaa taagan dawladuhu iyo caalamku waa danaysi waxba la isma amaahiyo dawladu waliba mowqifka qaadato waxay ka arkaysaa danteeda gaarka ah hadday danta Somaliland iyo masaalixeedu Qatar ku jirto xaq waxa uu leeyahay Qatar taageero laakiin Somaliland waxay u aragtay danahoodu inay ku jirto dawladaha Sacuudiga Imaaraadka Masar iyo kuwa kale oo mowqif ka qaateen su'aashaad bay isweydiin jiray waxa weeye Somaliland dawladda maanta ka talisa waxaynu ku naqaanaayeen hore u aragnay inaanay tixgelin badan siin danta dalka iyo masaalixa ugu jira kolba mowqifka qaadanayso oo waxba ku iibsan aad bay raqiis u tahay waxyaabay Somaliland ku qaadato go'aanada noocaas oo kala anu waxaan qabaa inta badan Somaliland way soo dhaweynaysaa mowqifka laakiin waxa laga rabaa dawladda Somaliland ee aanu uga baranay inaanay danaheeda ka faa'iideysan iyo miisaankeeda kolba arrinka ay ku jirto inay ku baayactanto oo wax u dhigma taageerada intaa leeg ay dalalna ku go'doominayso dalalna ku taageerayso inay hesho ugu dambayn dawladda Soomaaliya way ka gaabsatay amba way iska diiday codsigii dawladaha go'doomiyay Qatar oo Sacuudi ka mid yahay waxay se fasaxday diyaaradaha Qatar Airways oo dhul badan ay mari jirtay laga joojiyay inay Soomaaliya mari karto dariiqahan dariiqa la sheegay Soomaaliya ka martaana waa Somaliland waxaana la sheegayaa intii uu soo baxay amarkani inay diyaarada Qatar leedahay ay mareen hawada Somaliland iyagoo ku socda amarkii Soomaaliya waa in dawladahaynu taageereen laga dalbada imkaaniyaadkeenu ku ilaalin lahayn hawadeena si aanay u soo marin diyaaradda Qatar Airways ee laga mamnuucay dawladaha Qatar ka dhanka ah iyo siyaasiyan Somaliland mowqif aad u liidatay maanta taaganta iyadaaba go'doona waa in la dalbadaa oo laga dalbadaa innaguba waynu taageernay siyaasiyan baynu taageernay strategically baynu taageernay morally baynu taageernay isbahaysiga Qatar go'doomiyay iyagana waxa looga baahan yahay haddaan xataa i'tiraaf laga helay
inaynu ka helno taageero siyaasadeed